السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن اسكو سو نقد وناكسن maantadani waxaynu qaadan doonaa maadadeeni inoo socotay medical psychology 10kii shanaad 10kan maanta waxaynu ku baran doonaa ama aynu ku soo afmeeri doonaaba qaybta intestinal protozoaniska 10kii saddexaad oo aynu ka qaadan doonaa ayuu noqon doonaa qaybtaasi 10kaas oo maanta aynu ku qaadan doonaa waxa uu noqon doonaa ciwaankiisa Cryptosporidium hominis insha Allah. qodobada aynu ku baran doono waxa uu kala sameeyay sida qodobadii hore 10radii hore aynu ku soo barnay life cycle kooda introduction kooda iyo xog badan oo ku saabsan insha Allah. waxaad kala dheehan doontaa muuqaalkani inta uu inoo socdo bin Ilaahi jalla wa ala ilaa dhamaadka 10kan insha Allah waxaan rajeen doonaa inaad ila gaari doontid. qodobkeena koowaad 10ka maanta inuu ku hormari doono waxa uu noqon doonaa inaynu ka hadalno introduction-ka. waa maxay introduction-ka uu leeyahay Cryptosporidium hominis? cudurkani waxa uu in badan la sameeyaa ma similar leeyahay marka loo fiiriyo cudurkii aynu ku soo qaadanay 10kii afraad ee dambe oo ahaa 10kaasi in badan aynu kaga helnay jaardiya iyo isaga waxay leeyihiin waxyaabo badan oo similarity ah balse meelo qaar ay kala duwan yihiin. inta badan horta waxay ka muuqdeen inay intestinal protozoaniska yihiin kuwaas oo inta badan sababa diarrheal disease. cudur waxay sababaan marka keena qofka inuu ama xayawaankii ku dhaco ama qofkii ku dhaco inuu develop gareeyo shuban. Okay, diarrheal disease ka uu keeno marka midka kani waxa loo yaqaanaa midkii hore cudurku uu keenay magaca keena protozoanka ba islahaayeen oo ahayd giardiasis. midka kani waxa loo yaqaanaa Cryptosporidiosis ayuu keenaa. marka la isku daro marka parasite ka keena cudurka iyo cudurkaba waxa la isku yiraahdaa crypto. waxyaabo similarity ay ka sameeyeen yihiin marka labadooda waxa weeye hadaynu bayaanino marka ugu horeyso transmission-ka ama mode of transmission-ka. marka aynu ka soo hadlaynay jaardiya mode of ama most common mode of transmission-ka ama qaabka ugu badan uu ku gudbi karo waxa uu ahaa in uu ku gudbi jiray biyaha. midka kan waxa uu kala sameeyay waxa uu ku gudbaa isla mar ahaantaani uu saameyntiisana ka bilaabataa in uu ku gudbo biyaha. waa waterborne mode of transmission. qodobkaasi waa ay ka sameeyeen. qodobka labaad ay ka sameeyeen waxa weeye jaardiya waxa uu lahaa in uu gidaar ama outer shell uu lahaa kaasoo inta badan ba ka caawinayay in disinfective uu ku sameeyo chlorine hadii lagu daro biyahaasi ama in uu ku sameeyo in uu u ogolaado in muddo badan ay baaqi ku sii ahaadaan markay u soo baxaan dibadda iyagoo la jira ama soo raacaba saxaradii qofka. labadaasi qodob aynu hadda ka dhawaajin waa kuwa ka siman marka loo fiiriyo kii hore kii aynu ku soo barnay ahaa jaardiya iyo midka kan aynu maanta ka hadlayno ah Cryptosporidium. waxaan filayaa similarity-gooda inaad fahamtay. meesha marka ay ku kala duwanaan doonaan waxa ay noqon doontaa inta badanba marka aynu u fiirino life cycle-ka. qaybta life cycle-ka aynu ku dheehan doonaa meelaha ay ku kala duwan yihiin marka loo fiiriyo wareegta nololeedkooda labada protozoa aynu hadda ka hadlaynaba. life cycle-ka aynu ka hadalno marka life cycle-ka waxa uu leeyahay midka kani hadii uu lahaa midkii hore cyst iyo uu lahaa walaal mustacaan nooc labaad ee trophozoite. midkan waxa uu leeyahay oocyst ayuu u jiraa marka loo fiiriyo qaabka ama habka uu ku infect gareeyo qofka. trophozoite waa uu noqdaa goorma qofka markii uu jirkiisa tago oo excitation lagu sameeyo balse ka hor waxa uu yahay walaal mustacaan in loo yaqaano oocyst. oocyst waa maxay? waa ukumahaas oo marka u tarma si asexual ah si waxay u tarmaan jinsi laawa ah not sexually ma ahan kuwa male and female isku tarma balse si waxay u tarmaan kala jinsi ah midba midkiisa ayuu tarmaa. markay jirka galaan waxay noqdaan kuwa bata. qaabkay u bataan marka uu male yahay Cryptosporidium-kaasi ama protozoan-ka aynu hadda ka hadlayno uu yahay mid male ah marka uu isbadiyo waxa uu noqon doonaa ama qaadan doonaa magac loo yaqaano micromont. halka marka uu female yahay uu isbadiyo magac uu qaadan doono waxa loo yaqaanaa macromont. labadaasi waynu isla fahnayaan filayaa. qofka waxa uu marka badan inta badan ku saameyn karaa marka ama transmission-kiisa buu ku dhici karaa laba midkood ama qofka inuu qaato cunto ay ku jirto oocystiga hadda ka hadlaynay. oocystiga laba form u jiro. mid waxa loo yaqaanaa thin walled oocyst iyo thick walled oocyst. thick walled oocyst waa midka soo raaca saxarada hadhow dambana marka qofka uu qaato ku keeni doono inuu infect gareeyo. laakiin midka kale aynu ka hadlayno oo loo yaqaan thin walled-ka waxa uu si toos ah u dagaa jirka wiligiisna dibadda uga baxo oo ah waa never disposed ama never excreted from the body. jirka wiligiisa kama baxo. intaas waan isla fahnayaan filayaa. life cycle-ka isagoo bayaansan marka insha Allah figure ah ama jaantusa qaybta ayaynu ku codeyn doonaa. waxaan rajayn doonaa inaad wax badan ka fahmi doontid.
ina la daawo hal mar si aad wax badan uga fahamtid qaybtaani. waayahay hadeertoole waxaynu markaa sharxi doonaa life cycle-ka uu yeelan doono Cryptosporidium hominis. life cycle-ka protozoahani wuxuu ka bilowdaa marka qof uu saameeyay protozoa noocan ahi ayaa saxaradiisa waxaa soo raaci doono ukumo loo yaqaano oocyst. waxa ay ka samaysan yihiin gidaar aad u adag. oocystaha noocan ahi marka uu soo raaco saxarada qofkii waxa ay ku milmi doonaan biyaha aynu cabno ama kuwa aynu ku dabaalanaba. qofka marka uu qaato marka biyaha ay ku jiraan ukumahani oocystiga waxaa dhacaya in jirkeena gudaha markay u galaanba ay sameeyaan hatching ama ay dilaacaanba. marka ukumahani ay dilaacaan marka waxa ay soo badin doonaan jirka gudihiisa. waxa ay ku sameyn doonaan jirkii inay ku bataan, qaarna ay soo raacaan saxaradii, qaarka kalena ay jirkii ku sii haraan siina infect gareeyaan. waxay ku kala duwan yihiin marka jaardiyihii aynu ka soo hadalnay casharkii hore iyo midka kani in midkani life cycle-kiisa in badan badoor uu ku leeyahay oocyst, halka markaynu ka hadlayno midkii hore ee jaardiyahana uu trophozoite iyo cyst, khaasatan cystiga uu ahaa midka ugu badan ee ka qayb qaadanayay ama kaalinta weyn ku lahaa life cycle-ka uu lahaa jaardiya. waxaan filayaa marka farqiga u dhaxeeya in aynu isla fahnay marka kane. haddaynu u gudubno marka aynu soo fahnay qaybihii hore, qaybtan waxaynu ku baran doonaa clinical manifestation-ka ama waxyaabaha lagu arki karo qofka marka uu ku dhaco Cryptosporidium hominis. waxyaabaha lagu arki karo waxa ugu badan inta badanna ay saameyntiisa ka dhalataa marka qofka uu develop gareeyo haddii qofkaasi uu yahay mid immunocompromised ah ama uu yar yahay difaaca jirkiisa in uu noqdo mid fluid loss uu ku dhaco, sababtana ay keenayso shubanka badan ama diyaariyaalka badan oo qofkaasi develop gareyn doono. haddii qofka uu develop gareeyo marka waxaa laga maarmaan noqonaysa inuu fluid loss ku yimaado. saameyntiisa ugu badan waa intaas. waxyaabo qaar ayaa soo raaca sida qofka inuu lalaba iyo matag uu dareemo oo calaamado oo dhif ah, balse inta badan calaamada ugu badan waxa weeye qofka lagu arki karo inuu fluid loss badan sameeyo iyadoo sababteedana ay tahay diyaariya. clinical findingska waan isla fahnayaan filayaa. aynu ugu gudubno qaybta marka daaweyntii iyo ka hortagii aynu u fiirin doono qaabka looga hortago iyo qaabka loo dabiibaba. daaweynta waxay noqon doontaa laba qaab. bukaanka aynu daaweynayno haddii uu yahay mid aan qabin ama uusanba ku dhicin cudurka HIV ama HIV haddii uusan qabin, waxaynu ku daaweynaynaa inagoo siinayno nitrosamide, taasoo loogu talagalay in qofkii ay ka yarayso shubankii aynu noqoto daawo. waa daawada marka first line drug ee loogu talagalay qofka in la siiyo marka uu ku jiro xaaladda tani. daawada labaad ee qofka lagu dabiibi karo waxay noqon doontaa marka in aynu qofka siino haddii uu yahay qof qaba HIV ama qababa cudurka aynu hadda ka hadlayno HIV. daawada la siin doono waxay noqon doontaa bromomycin. sababta loo siinayo waxaa weeye ma ahan daawadii loogu talagalay, balse waxay ka yareynaysaa fluid loss-kii ama waxay biyo ahaa ama dareeraha jirkiisa ku jira qofka uu lumin lahaa ayay ka caawinaysaa in jirkiisa ay ku celiso. labadaasiba waxay noqon doontaa labada qaab aynu u daaweyn doono marka qofka uu ku dhaco cudurka kani. ka hortagga markaynu ka hadlayno, prevention-ka waxaa qofka lagu dabiibi karaa ama looga hortagi karaaba in qofka la siiyo biyo filtraysan ama biyo inta badan ba ah kuwa lagu sameeyo purification oo la nadiifiyey ama biyo la karkariyay. labadaasi midkood haddii kale qofka waxa uu u nugul yahay in uu qaado cudurka kani. haddaynu ka hadalno maxaa lagu sameyn karaa laboratory test ama maxaynu ku baari karnaa qofka kani. qofka noocan waxaa lagu baari karaa iyadoo loo isticmaalayo stool examination, lagana baari doono qaybta hadda aynu ka hadlayno test loo yaqaano modified quinine acid stain ayaa loo isticmaali doonaa. haddii kaasi uusan jirin waxaa la sameyn doonaa antigen ayaa laga qaadi doonaa saxarada laga helay Cryptosporidium-ka si loo xaqiijiyo nooca uu yahay. cudurkan inta badan way sheegnay waxa uu saameyn ka wax sida aynu hore u sheegnay waxa uu saameyn karaa dadka iyo xayawaanada labadaba. qodobada aynu ku soo koobnay casharkani waxaan filayaa inay wax badan ka caawin doonaan. maantadan casharkeena aynu ugu talgalnay mowduucani Cryptosporidium-ka aynu ku soo xidhaynay intestinal protozoaniska. waxaan filayaa inaad in badan wax ka fahantay. casharkani casharka xigeenteenu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum.